Ese marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. lix xubnood oo ka tirsan kooxda al-shabaab ayaa lagu dilay howlgal xalay ka dhacay deegaanka Basra oo u dhow magaalada Balcad ee waddanka Soomaaliya. hay-adda nabad sugidda ee NISA ayaa sheegtay in howlgalkaasi sidoo kale lagu soo qabtay mid ka mid ah kooxdaasi al-shabaab. dacwad ogayaasha Turkiga ayaa amray in la soo xiro shakhsiyaad magac ku leh bulshada dhexdeeda kuwaas oo la xiriirinayo in ay lug weyn ku lahaayeen barnaamijyo rabshado watay oo Turkiga ka dhacay sanadka 2013. dadka warqadaha lagu xiri lahaa loo soo jaray ayaa waxaa ka mid ah Mehmet Ali Alabora oo ka mid ah jilayaasha ugu caansan dhinaca filimada Turkiga iyo Can Dündar oo ah saxafi rugcada ah. labadan nin ayaa ka maqan dalka Turkiga waxaana ay masaafuris iskood ah ku degan yihiin dibadda. barnaamijyada Turkiga ka dhacay sanadka 2013 ee la magac baxay Gezi Park ayaa markoodii hore ku bilowday xadiiqad ku taal fagaaraha Taksim ee bartamaha Istanbul oo ay dawladdu rabtay inay burburiso kuna bedesho dhismooyin casri ah. barnaamijyadaasi ayaa isu bedelay kuwo lagu mucaaraday madaxweyne Erdogan oo xilligaasi ahaa ra'iisul wasaaraha Turkiga. booliiska ayaa xakameeyay dibadbaxyadaasi. xilli madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku baaqayo in wax soo saarka saliiddu ahaado mid xasiloon ayaa ururka uu Sacuudiga horkacaya ee dalalka soo saara saliiddu ay ku jiraan waddanka Ruushka iyo waliba xulafadiisu ay shaaciyeen inay jari doonaan soo saarka saliidda cayriin si ay hoos ugu dhacdo xaddiga saliidda ee suuqyada caalamka qiyaas ahaan 1.2 bilyan oo barmiil maalintiiba, taasi oo ka sarreynaysa xaddigii hore loo filayay. saraakiisha ururkan oo lagu magacaabo OPEC ayaa sheegay in aanay jirin siyaasadda dabada ka riixaysa go'aankan ay qaateen, iyagoo sidoo kalena ka horimi in saliiddu ay badhaysa ku noqoto suuqyada iyada oo la dirqiyayo. dhaqaalayahanada ayaa iyaguna dhankooda ku waafaqay hoos u dhigga saliidda in la sameeyo si loo soo tiiriyo bay yidhaahdeen qiimaha saliidda oo bishii Oktoobar 30% hoos u dhacay. sidoo kalena go'aankan waxaa iyaguna dhankooda u riyaaqay dadka ka faallooda arrimaha suuqyada saliidda caalamka. warka caalamka ayaa dhageysateen halka aad kala socoteenna waa VOA. haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka. waxaa magaalada Boosaaso ku soo diyaariyay Yuusuf Maxamuud Yuusuf. kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo xilligan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda VOA. barnaamijka hibada toddobaadkan waxaa marti noogu ah Sakariya Maxamed Cabdullaahi oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Boosaaso haddana curiya maasooyinka. Sakariya ku soo dhaw barnaamijka hibada iyo hal abuurka idaacadda VOA. Yuusuf saaxiib waad mahadsan tahay, waan ku dhowahay barnaamijka. inkastoo ay jiraan caqabado badan iyo waxyaalo badan oo dhalinyarada aan u saamaxayn in ay hibadooda iyo hal abuurkooda ay soo bandhigaan oo bulshada iyo dadka hall modelska ama ka horeeya ee waayeelkoodii ama dadkooda hadda ay ku dayan karaan ay yihiin dad aan yacni aaminsanayn in qofkani hal abuur la iman karo, vision iyo aragti duwan ta hadda uu hayo oo keeni karo wax ikhtiraaci karo. taas waa ta koowaad dhalinyaradeenna yacni xuduudaha ka xidhay ama ragaadisay aynu oran karno. waana arrin aad u adag oo aynu yacni ka simanahay Soomaaliya marka la eego caalamka. qofka haddii uu wax yar soo saaro bilaa macne ah xambal yaa la dhahaa, waa la mutafadgareeyaa, kor baa loo sii wad baa la dhahaa. adigu qofkii waxaa lagu sii dayaa inuu ahaa dhiirigelin weyn baa la siiyaa si uu u sii helo arrin tii ka weyn si uu u sii sameeyo ama wax kale uu isugu sii dayo. waayahay Sakariya, waa mahadsan tahay. bal waxaad iga warataa barnaamijka waa hibada iyo hal abuurka, adigana waxaa ka mid tahay dhalinyarada ku sugan magaalada Boosaaso hal abuurka iyo hibada leh gaar ahaan maasooyinka curiya. bal waxaad iga warataa goormaysi ogaatay inaad hibo iyo hal abuur leedahay? wallaahi waqti saa usii fog maahayn 2014 bay ahayd. waxa iigu horreysay maalinta inaan wax hal abuuro. iskuulka aan ka dhigan jiray secondaryga ee Boorama ku yaalo gobolka Awdal, Ubay ibn Kacab Secondary, baa waxaa naloo keenay in ardayda la tartansiiyo wixii hal abuur leh oo wax alifi kara ama mansoon kara ama abwaan ah
maalintii ugu horeysay baan isku dayay oo barnaamijka aan ka qayb galay wallahi dee isma lahayn horta waxbaad ka keenaysaa ama aragtidaydu ma lahayn laakiin waxaa islahaa bal waxaad hayso un goobta keen fikirkaaga laakiin kaalinta koowaad qofkii galay baan noqday iskuulka oo halka shahaado liigu guddoonsiiyey wakaas dee waxayna ahayd 2014 bishii 5aad bay ahayd intaa wixii ka dambeeyey maxaa sii wada marka halkaa dhiirigelinta aan ka helay iyo aragtida tii hore aan aaminsanaa ka duwan ee iiga soo baxday baa igu dhiirigelisay inaan sii wado hal abuurkayga ama kaalinta suugaanta aan kaga jiro oon wax sii alifo wallahi dee hadda in badan difference wuu udhexeeya maalintii aan kusoo biiray iyo hadda dee hal abuur baaxad leh waan sameeyo maansooyin iyo heeso la qaado iyo dhinacyo badan baan yacnihii aan suugaanta ka soo galgalay marka dee wallahi way kala duwan tahay bulshadana ma og tahay haddii aad hesho dad yacnihii kugu qanciya ama yacnihii kugu motifaadgareeyo kugu hal abuurkaaga kugu dhiirigeliya wax badan inaad soo saari karto wax badan aad bedeli karto baa dhici karta sidaad ogsoon tahayna hal abuurka dadka la dhaho ama mu'alifiinta abwaaniinta la dhaho waa dadka keliya yacnihii bulshada maankooda iyo maskaxdooda hanan kara iyagoon xoog iyo gacan qabasho iyo tooka qumin midna aan yacnihii ku qabsan laakiin aragti iyo fikir ay qabaan oo ay si murtiyeysan oo mahmaah iyo sugaani ay ku jirto ay ugu soo gudbiyaan bay bulshada yacnihii ku hantaan maankooda iyo maskaxdooda waana yacnihii dadka aan is oran karno qulubta bini'aadanka way bedeli karaan marka wallahi in badan waan jeclaa yacnihii inaan haldoor ama aan noqdo yacni hal abuur muuqda oo vision iyo aragtidiisa yacni bulshada oo dhan u soo baahiya wakaas bal maxaa is oran kadhaa marka maanso ahaan baa curisay oo adig ku gaara oo aad isleedahay intaad fikirtay oo aad waraaqii qalin u qaadatay baad samaysay wallahi maasooyin badan way jiraan oo aan kuwo yacnihii si guud u hadlaya oo dalka iyo dadka uga hadlaya oo soomaalida oo dhan saameeyey ama yacni caqabadaha ka jira soomaaliya ka hadlaya laakiin hadda maanta waxaan kugu hayaa halkan maanso la dhaho soomaali maxaa dawa dadka soomaaliyeed ee dhibtan iyo foodadan iyo qalalaasahan iyo dhibaatadan weynka ee baaxadda weyne ay yacnihii saamaysay bal maxaa dawa ah su-aashaasaynu isweydiinaynaa inta aanan maansada u gudagelin insha allah waxaan rajeynayaa bal su-aashaas in aragtiyadeeda wixii dhegeystayaasha iyo cid kasta uu gaadho warkan ama waraysigeygani inay yacnihii jawaab bal ay iska weydiiso soomaali in badan qalalaase iyo dhib iyo buuq iyo dowlad la-aan bay ku jirtay maxaa bal u dawo ah oo soomaali hadda yacnihii dad isku xidhan oo mid ah oo adduunka yacnihii dee laga qadariyo oo nolol fiican iyo masabad fiican ku nool maxaa ka dhigi kara soomaali u dawa haddaan su-aasha ka baxo oo aan maansada guda galo maansadu waxay ku leedahay dalkood damay baan arkaa dadkood doqon wada noqdo dantood garanayninoo iswada dooxaan arkaa waxaan diidaan arkaa dacadoo dhimataan arkaa samahoo durkay baan arkaa daloolo jiraan arkaa dekano badan baan arkaa dawoobila baan arkaa duruuf badan baan arkaa dil iyo boob baan arkaa yacnii soomaali ilaa xilligii dowladdii ay burburtay dhexe ilaa hadda maalinba madaxweyne bedelaayey wax isbedelaa oo nolol ka wanaagsan tii horena weli maynu hayno dawoobila baan arkaa duruuf badan baan arkaa dil iyo boob baan arkaa xaaraantoo lagu dego ducada ka wanaagsan oo la doortoon baan arkaa marka maansadii baan kusii guda jiraaye intaan soo wada dejiye ku dhigay deelaydan iyo ka sii daran baan arkaa aanay soomaali ka shaqayn ismalihii diifta iyo dhibaatada iyo dihaalka ay maanta ku jirto way ka baxaysaa inta aad yacnihii bulshadiinnii kii mansab iyo reer lagu ciilay inaad yacnihii aad cagta sii saartaan ood sii xumaysaan inta ay taasi jirtona daacadi maba dhalanayso daacadi ma jirto yacnihii waa laysdulmiyayaaba intaad dabin qoolaysaan intaad dayac beeraysaan dunidu waa yaabtaye xaggee dakharkiinan jira dawiyo dhama loogahay yacnii dhibaatadan iyo dakharkan iyo xanuunadan idinku dhacay dawadeedii sidee loo helaya ama xaggee laga helaya duruufta adduunyada darsiyo cilmi kuu dhigtee damiirka inaad la'diin waxaa duhur iyo habeen dadkiinu ku kala fogaan miyeedayn dayn karayn
bay leedahay yacni dhibaatada iyo problemka soomaali iyo bulshadeedii ay ku jirto miyaanada iska dayn karin dhibteedaas soomaalay dantiin garto isdaayo deris noqdo dagaalka waxaad wadaan dar ilaahay u dhaafo oo dacalka isqabsada dhammaan sidaasaa door ahe soomaali waata keliya aan usoo jeedinayo oo ay magac iyo mansab iyo meel sare ay ku gaari karto waa inay mid ahaato ay midaysnaato gacmahana ay isqabsadaan ayna yacnihii dee wax kasta oo aan jiritaankooda iyo noloshooda aan ku wanaagsanayn ay ka tanaasulaan intaasaan kusoo gabagabaynaya abwaane waxaa la yidhaahdaa dhalinyarada haybada iyo hal abuurka leh inta badan ma soo bandhigaan fikradaha iyo hal abuurka ay qabaan si dhalinyarada kale loogu wacyigeliyo maxay idinka hortaagan arrintaas wallaahi way jirtaa dhalinyaro badan oo aragtiyo dee lais oran karo waa waxyaalo cusub oo lasoo saaray ama dahka qaarid ah way jiraan dhalinyaro samayn karaa laakiin waxa keliya ee hortaagani waxa ay kow ka ah in bulshada iyo dadka soomaaliyeed aanay yacnihii ku baraarugsanaynba inay iyagu wax soo saari karaan oo iyagu yacnii ay noqon karaan dad yacnihii productivity leh ama yacni wax soo saar leh oo aragti iyo vision cusub la soo bixi kara laakiin ay keliya iska daadhiciyeen inay wax bini aadan kale soo saaray qof yacnihii kula mid ah kula derajo ah ilaahay aanu masab iyo derajo kale ku dheeraysiin oo inta aad ku dhalatay ku dhashay wixiisii inaad isticmaasho aad adigu aad sii aad noqoto yacnihii aad iibgeyso uun oo aad isaga ku tiirsanaato bay soomaali yacnihii inteeda badan ama inteeda hadda dee la oran karo waxbaa laga qori karaa oo dadkeeda waayeelka ah intaasunbaa yacni hadda ka dhaadhacsan taasaana keentay inay dhalinyaradu yacnihii dhibaatadaasi ay qabsato ay wixii ay ikhtiraacii lahaayeen ama wixii ay soo saari lahaayeen ay halkaas yacnihii ay ka joogsato sidee loo heli karaa marka ta keliya loo heli karo horta waxa weeyaan marka hore dhalinyarada yacnihii dhiirigelin baaxadle ay u sameeyaan dowladaha maamul goboleed hadday ahaato iyo hadday dowladda dhexeba ahaato ganacsatada bulshada qaybaheeda kala duwan soomaali haddaynu nahay yacnihii dhaqan baynu leenahay iyo dad yacnihii hormuud inoo ah oo dhaqanka looga dambeeyo yacnihii dhinac kastaba oo bulshada ka mid a oo activityga iyo firfircoonida dhalinyarada ka qayb qaadan kara inuu ka qayb qaadataan rajaynaynaa oo aan jecelnahay dhalinyaradana in lagu dhiirigeliyo mar walba lagu gobaabiyo waa aragti iyo fikir wanaagsan waayo inankii dhalinyarada ahaa maanta waxaa la yidhi dhalinyaro intay geed ka booday tala ka boodaa ninka dhalinyarada ahaa maanta haddii loo sameeyo shaqo abuur haddii loo sameeyo dhiirigelin oo la dhaho waxyaalo adiga hobbigaaga ah aad xiisayso oo aad jeceshahay inaad soo saarto ama aad noqoto samee waxaa suurtoobi kartaa inuu ku mashquulo oo waxyaalaha raadiyo oo uu jeclaysto inuu waxaa soo saaro oo xilli badan yacni waqti badan uu ku bixiyo halkii dhallinyaradeennu ay ku bixin lahayd inay dhibaatooyin iyo qalalaase iyo buuq ay samayn lahayd taasina xagga amniga oo kale waxbay ka anfacaysaa oo kaas adiga waxaa ka mid tahay dhalinyarada hal abuurka leh boosaasana ku sugan mar kale dhalinyaro aad garanaysaan baa jidha gaar ahaan kuwa jaamacadda isla dhigataan kuwa xaafadaha aad tihiin kuwa aad suuqyada isugu timaadaan waana ku garanayaan in nin dhalinyaro oo hibe iyo hal abuur leh oo maansooyinka curiya abwaanna ah bal waxaad iga wartaa dhalinyarada markaad aragto ama aad la sheekaysato maxay kuu sheegayaan wallahi horta waa run dhalinyaro badan waan la sheekaystay oo kuwa jaamacadda hadday tahay asxaabtayda kale hadday tahay dhalinyarada suugaanta iyo hal abuurka aan wadaagno hadday tahay qof waliba yacnihii niyaddiisa iyo moralkiisu kuma fadhiyo oo ma jeclaysanayo yacnihii hadda wixii aynu kasoo sheekaynay oo dhan siduu ugu noolaan lahaa ama caqabadahaasi siduu u wajihi lahaa waayo saan filayno dhalinyaradu waxa ay jeceshahay inay mar walba iyagu yacnihii hormuud noqdaan wax laga weydiiyo talo iyo tusaale laga siiyo wax kasta oo yacnihii bulshada soomaaliyeed dhex imanaya laakiin dhalinyarada qofkaad aragtaa wuxuu odhanayaa niyo de annaga maxaa nalaga arringelinaya ama annaga maxaa nalaga odhanayaaba dee rag baa afka duubtay oo iyagu yacnihii gacanta ku haystay hadday siyaasad noqoto hadday noqoto dhaqaale hadday noqoto shaqooyin dhinac walbaba yacnihii waayeelkii ama raggii waaweynaabaa isku koobay dhalinyaradii wax
yacni loo qabtay ama wax la siiyey oo la oran karo dhalinyarada waxaasaa loo hayaa ma jirto. ninkasta wuxuu leeyahay lugeyn nin waliba wuxuu leeyahay mataqaanaa dee tiisa un buu leeyahay aniga un bay iigu filan tahay laakiin wax kale yacni ma sii ogoli. bulshada qaybaheeda kala gedisan ma ka heshaa dhiirigelin ku saabsan in hibadaada iyo halabuurkaaga aad sii kordhiso aad sii ballaarisid dhalinyarada kalena ku wacyigelisid? wallahi horta dhalinyarada isku fikir baanu nahay oo dee maan arag weli nini dhahaan iyow halabuurnimada aa ku jirto iska daa ama halabuurnimadaas yacni kumaad soo baxaysid. laakiin dadka waaweyn waxaa lagu oranayaa niyahow maxaa 10 kaa horreeyey oo kaa yacni sugaan iyo mug weynaa halabuur dee waxay ka hayaan iyaguba ma jirto oo iyagiiba yacni ama tii allah u timi ama haddaba yacni waa dayacan yihiin. marka yacni waxay isleeyihiin qofka bini'aadanka ah kii hore meesha uu maray unbuu maraya. dadku yacni waa kala duwanaan karaan aragtidooda iyo fikirkooda waa kala duwanaan karaa yacni halka ay ka maansoonayaan iyo hal curiska maansadooduna yacni way kala duwanaan kartaa. weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka hibada halabuurka idaacadda VOA. Sakariye, ugu dambeyntii dhalinyaro badan baa halabuur iyo fikrada leh, haddana waxa ay inta badan ka cagajiidaan inay soo bandhigaan maskaxdoodana tuujiyaan bulshadana uga faa'iideeyaan hal abuurka iyo hibada ay leeyihiin. gadaalna bay u baqaanba inta badan la dhahaa iyagoo is oranaya ma helaysid sida hadda sheegtaba in haddii aad geshid barnaamijkaasi cid ku gacan qabata cid muxuu ahay ku dhiirigelisa. waa run aad iyo aad way jirtaa taasi. waata keliya koowaad aynu oran karno dhalinyarada way haysataa Soomaaliyeed waxa ay dalka uga cararaan ama ay dalka uga tahriibaan si ay u helaan nolol ay ku qanacsan yihiin, si ay u helaan shaqo iyo wax ay yacni maanta ku tashan karaan oo is oran karaan noloshiina maanta waad ku kafargarayn kartaan ama noloshiina maanta waad yacni waad ku daryeeli kartaan. haddii aynu dalkeenna gaar ahaan Boosaaso haddaynu ka hadalno gobolka Bari waxaad arkaysaa nin dhalinyaro ah oo jaamacad ka soo baxay ama jaamacad wada jecel in uu shaqaysto laakiin haddana fursadaha shaqada isagoo raadinaya aan helin opportunity ama fursadii uu yacni shaqo lagu siin lahaa oo ayo saynu ogsoonahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxa shaqadii waxa ka xidhay in qabyaalad iyo reer iyo kanaa xiga iyo waxa in la isku geeyo. marka waata koowaad ee dhalinyaradeennu ay u tahriibayso dhibaatooyinka iyo rafaadka ay u marayso badaha ay ugu dhimanayso oo kaas ugu dambeyntii dhalinyarada hal mid baan u soo jeedinayaa. ta koowaad ee soo jeedinaya waxa weeyaan dhalinyaroy dee dalku maanta uma baahnaa nin weyn oo hadda 60 iyo ka bad ama 60 iyo ka sarreeya oo aan yacni tiisiiba ay yacni ku jirto lama heli karo. waxaan leeyahay dhalinyarada dalku idinku idin baahan yahay, idinka iftiinkii iyo bixii dalka ah, idinka hormuudkii ah, waa inaad dalkiina aad yacni aragtida iyo fikirka aad laydinka qabo inta aad ka bedeshaan aad samaysaan aragti iyo fikir ka duwan oo aad dalka ka qayb qaadataan horumarkiisa, siyaasadiisa, qaybihiisa kala duwan ee dalku u baahan yahay in laga dhiso. oo kaas intaasaan yacni dhalinyarada aan ku gubaabinayaa oon u sheegayaa. guud ahaan dhegeystayaal intaas ayaa toddobaadkan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo aad ka dhegeysanayseen idaacadda VOA. barnaamijka toddobaadkan wuxuu idinkaga imaanayay magaalada Boosaaso. anigoo Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa idinla socodsiinayey, waana ku mahadsantihiin dhegeysiga barnaamijka. Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaana dhegeystayaal barnaamijkaasi noogu soo diyaariyey magaalada Boosaaso. haatana ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha. waxaa magaalada Minneapolis ee waddanka Mareykanka noogu soo diyaariyey wariyahayaga Maxamuud Mascade. kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba. waddanka ingiriiska haddii aana ku bilaabo kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo booqanaysay garoonka Stamford Bridge ee magaalada London ayaa la laqsiyey guuldaradii ugu horreysay ee horyaalka waddanka ingiriiska xilli ciyaareedkan. waxaa lagaga badiyey 2 gool iyo waxba oo waxay ahayd maalin madow oo kooxda kubadda cagta ee Manchester City macalinkeeda Guardiola iyo kooxdiisuba ay la kulmeen. ciyaaryahan N'Golo Kante
ayaa qaybtii hore ee ciyaarta oo ay sakano uun ka dhimanaayeen gool qurux badan shabaqa la helay qaybtii dambe markii la isugu soo noqdana wiilka reer Brazil ee xilliga ay kooxdiisa ugu adag tahay goolasha ka farxiya taageerayaashiisa dhalintooda caan ku ah David Luiz ayaa goolka guusha u saxiixay kooxdiisa kubadda cagta ee Chelsea sidaasina 3 dhibcood ayaa lagaga diirtay kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo hoggaanka horyaalka waddanka Ingiriiska ay kala wareegtay kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo iyadu goor hore oo maalintii shalay ahayd ka badisay kooxda kubadda cagta FC Bournemouth 4 gool iyo waxba ayay kaga badisay ciyaaryahan Mohamed Salah ayaa masraxa gool dhalinta ku soo noqday mar kale oo goolashaasi 3 kamid ah isaga ayaa saxiixay ciyaaryahan Mohamed Salah ayay ka muuqatay caro isla markaasina ma aanu ahayn ciyaaryahan goolasha uu dhaliyay ku faraxsanaa waxayna taasi keentay in taageerayaasha kooxda kubadda cagta Liverpool ay arrintaasi ka hadlaan oo baraha Twitter-ka isku weydaarsadaan waxa keenaya ciyaaryahanku inuu u dabaaldegi waayo sidii sanadkii hore ugu dabaaldegay markii uu dhalinayay goolashii 40 ka badnaa si kastoo ay tahaba kooxda kubadda cagta Liverpool horyaalka waddanka Ingiriiska hoggaankiisa iyada hadda haysa lama oga intay sii hayn noqoto walow ay hal dhibic ka sareyso kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo Chelsea ay ka soo badisay macalinka Guardiola waa kooxda Manchester City macalinkooda ayaa kulanka ay la ciyaareen Chelsea kadib warbaahinta maruu la hadlayay waxa uu sheegay in kooxdiisu 5 daqiiqo marka laga reebo mooyaane inta kale ay si wanaagsan u ciyaartay laakiin se nasiibku uu ka heliyay kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa iyana ku durdurisay Fulham 4-1 ayay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Arsenalna dirqi garoonkeeda Stamford garoonkeeda Emirates Stadium waxay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Huddersfield Town gool qurux badan oo labaalay ah ayaa ciyaaryahan Torreira wiilka qadka dhexe uga ciyaara ee reer Uruguay uu dhaliyay waa kulankii labaad ee xiriira uu kooxda Arsenal ciyaaryahankaasi goolal u dhalinayo waddanka Talyaanigana kooxda kubadda cagta ee Napoli ayaa ku durdurisay kooxda Frosinone oo 4 gool iyo waxba ayay ka dhalisay kooxdaasi Frosinone waxaana kooxda kubadda cagta ee Lazio toddobaadkii labaad lagu celinayaa ciyaar bareja kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo Espanyol la ciyaaraysana waxay ku badisay 4 gool iyo waxba ciyaaryahan Lionel Messi ayaa goolashaasi 2 kamid u saxiixay halka labada kale ay kala dhaliyeen ciyaaryahanada weerarada ee Ousmane Dembele iyo Luis Suarez dhageystayaal xubinta ciyaaruhu waa naga intaasina kulan dambe waa mascado idila sida nabad aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha haatanna kaalimihii heesaha waxaan idin soo qabanay heestii aad bilowga barnaamijka ku maqasheen ee indha caashaq iyo Maryan Mursal Ciise وحيان جرا نقول أروس دون الكلا أما وكلا وحيان جرا نقول أروس دون الكلا أما وكلا وحيا الجرا نقول أروس
aynagon aroos non milkala ama ukala codka fanaanada maryam masal ciise iyo weliba heestaasi dhegaystayaal ayaan kusoo gabagabayn doonaa idaacadayda duurnimo barnaamijka dhalinyarada maanta waa nuur xasan nuur anigoo cabdixakiin shirwac iyo weliba bashiir abikar cabdilaahi iyo guud ahaan bahda v o e leh nabadgelyo asida aygeela lalaasayey oogada jariir ulkiyo wadnaa ku abuuranye waxayan dara inagon aroos non milkala ama ukala waxayan dara inagon aroos non milkala ama ukala